gudoomiyaha maxkamadda gobol degmo Gabiley Khadar Ibrahim Jaamac isagoo ahmiyadda siinaya habsami u socodka shaqada cadaaladda ee ay maxkamadda gobol degmo Gabiley u hayso shacabka gobolka ayaa waxa uu suurtageliyay in maxkamadda oo aan muddo 30 sano ah lagu kordhin wax dhismo ah maanta oo gudoomiye Khadar hayo maamulka maxkamadda ay yeelato dhismo cusub si loo dardargeliyo shaqada bulshada gobolka Gabiley ee u hayso maxkamaddu. dowladda hoose ee degmada Gabiley ayaa markii loo gudbiyay baahida dhisme ee ka jirta maxkamadda gobol degmo Gabiley ka soo jawaabtay waxayna gudaha maxkamadda ka hirgelisay dhismayaal kor loogu qaadayo shaqada cadaaladda gobolka waxaana maanta xadhiga ka jaray gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Maroodi Jeex. xafladda daafurka xafiisyadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qareeno isduwaha cadaaladda taliyayaasha qaybta saldhigga jeelka xeerlaalinta gobolka garsoorayaal madax dhaqameed iyo mas'uuliyiin kale. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay halka waxaan mahadnaq uga soo jeedinaynaa dowladda hoose ee degmada Gabiley iyo maayir maxamed amiin cumar cabdi iyo golihiisa deegaanka waxqabadka ay ka muujiyeen dhismaha cusub ay ku soo kordhiyeen iyo shirkadda Xaaji Muuse Company oo iyaduna qaybteedii ku tabarucday inay ku darto qaybteedii. gudoomiyaha golaha deegaanka iyo golihiisa deegaanka iyana waxaan leenahay ku maadsantiin Xaaji Muuse Construction oo kaysi nala joogo iyaguna qolka saddexaad imni teegaya ayaa ku dareen iyaguna saasoo kula maadsantiin maada koowaad Ilaahay baa leh. Khadarna wuxuu noqday gudoomiyihii uu maayirku codsi aqbalo isagana aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa oo khadam qaday waaska waxa muhiim ah in la xuso qofka wax qabta iyo ka u tilmaama in la qabtaaba diiniyan waa isku ajar. marka waxa muhiim ah iyaduna maanta inaan xusno oo saxaafadda u sheegi doonaa oo si gaar ah kamarada lagu qaban doonaa qolka yar sayidka ee dhinacaya kayse Xaaji Muuse ayaa fuliyay oo iska leh gobolka cid kale wax ka qabataa ma jirto haday caafimaad noqoto iyo haday waxbarasho noqoto iyo haday saldhig noqoto iyo haday adeegyo kale oo dhammaan ay bulsho noqoto waxa la wada eegaa dowladda hoose. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka sugaynaa maayirka golaha deegaanka oo ku suntan maayir wax qabad inuu mas dhismayaal qurux iyo qalabba noo soo fuliyo. tan waxay baaldahaba u gelaysaa dhammaan gudoomiyaashii gobolka soo maray ee maxkamadda gobolka Gabiley ka soo taliyay ee garsoor ahaa uma suurtagelin inay wax ku soo kordhiyaan qalab xafiisyo iyo dhismo. gudoomiye Khadar oo muddaxileedkiisu ku soo beegantay in dhismaha la fuliyo gudoomiye haddana hawrka qaranada gobolka Gabiley iyo shacabka gobolka Gabiley iyo ka deegaankuba adiga ku suntan oo kugu mahadnaqana taariikhdana meel dahaba ka qoranta waana wax qabadkaagii waa ku amaantahay intan maanta aanu sheeganahay inta ka dambeysaba waanu sheegnaa in muddadii aad joogtay xafiiska oo waliba ku qiyaas karo inay tahay muddo gaaban hal sano oo bishii 10 sanadka hore laga soo magacaabay. waxa leenahay waa barbilow waxa lagu soo kordhiyay maxkamadda hal qol oo hoola iyo qol xafiisa oo dowladda hoose dhistay. qol saddexaad ayaana anaguna marka gudoomiyuhu noo sheegay baahida faraha badan loo meesha taala aanu shirkad ahaan ku tala galay inaan dakhliga ka bixino ka dhisnay. shirkadaana qolka saddexaad ku dartay dhismaha maxkamadda. shirkaduna waxay u abuuran tahay uma abuurno kaliya mana dhisna inay dadkeeda ka shaqaysato waxay u dhisan tahay inay arrimaha bulshada ka jawaabto wixii looga baahdanayo dhinaceeda la taagan tahay. waxaana nagu mahadnaqayaa maayirka ka hirgeliyay maxkamadda dhismaha cusub sidoo kalena waxa ku suntan magacna ku helay gudoomiyaha maxkamadda Khadar. waxaan leeyahay hambaliyo waxaan kan cod dheer ugu dirayaa maadaama anaguna xeerlaanta ee gobolka ay ka tirsanta maadaama ay door muhiim ah ay ka leedahay maxaydan xeerlaanta gobolka intaasoo saldhignaay oo simaadaan anaguna waxaan uga fadhinaa dhulka xeerlaanta loo dhisi lahaa maadaama wixii qalabkii lagu dhisi lahaa wixii diyaar imika ay noo yihiin in dhul maxaydan sida ku dhaqsaa badan anagana in dhul maxaydan siiyaan intaasaan u dirayaa insha Allah. alxamdulilah rabbil caalamiin mahadoo dhan waxay u sugnaatay rabbil caalamiin. mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa dowladda hoose oo si degdega oo wanaagsan u ajiibtay baaqi aan u dirnay ee maxkamadda inay ka qayb qaadato ballaarinteeda. waxa kale oo mahadnaqayaa oo iyadana aan ilaabayn mar walba shirkaddii dhismahan fulisay ee Xaaji Muuse Construction Company oo iyaguna sidii aanu doonaynay iyo codsi waloonu gudbino lana sidaa loo ekeysiyaba naga aqbalayay. runtii waxa weeyeen mas'uuliyad saaran baahed waajibaadaan gutay waxaan soo kordhay
ee laygu ammaanay waa waajibaadaan gutay waa shaqadii lay soo diray qayb ka mid a unbay tahay maxkamadda gobol degmo gabiley 30 sano aynu waddanka ku jirnay waxay ku shaqaynaysay inta aynu arkayno oo 2 qol oo xafiisyo ah iyo qol hoola waa 2 maxkamadood oo isdul saaran waa maxkamaddii degmada oo ikhtisaaskii degmada wadda iyo maxkamaddii gobolka oo ikhtisaaskii gobolka iyana wadda waa 2 darajo ee ay dacwadu ka bilaabmayeen culayska ugu badanna waa halku yaallo marka la eego baada garsoorka waxaan markiiba damqay waxa weeye xafiis yaraanta taala gobolkii iyo shaqada baaxad leh ee meesha ka socota oo 30 sano ee aynu waddanka maanta xornimadeena haysaneen ku jirno intii 30 sano lagu shaqeynayay in laga kala sanadka inagu soo birtay waxaan rajaynayaa haddii ilaahay ugu simo sanadka xigana intaas iyo in ka badanba in iyadana ku soo biiri doonto maxkamadda markaa nimi gaadiidka waxaan ugu yimi hal xaajiyada oo iyaduna ay hawlaha iyo shaqada meesha ka socota iyaduna noo wada alxamdulillah gaari labaadna maanta sanadka gudihiisina waa noo soo biiray marka adigu wax diyaarsato ayaa ummadda wax kula qabataa alxamdulillah gudoomiyaha maxkamadda gobol degmo gabiley baa ilaahay u suuro geliyay khadar ibraahim iyo maayarka maxamed amiin ayaa ilaahay u suuro geliyay inay dhismihii ku guuleystaan aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa iyo shirkadii dhistay maxaan ku yiraahdaa xaaji muuse oo waliba intay dhismihii qandaraaskii qaadatay ku kordhisay dhisme si qurux badan oo dhistay muujisana inay laxajaala ka qabto gobol degmo gabiley ee ku dartay iyaduna qayb ka qaadatay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa weeyaan aad iyo aad 2 qol 3 qol ee quruxda badan faa'iido badan bay soo kordhinaya waxa loogu adeegaya waa bulshada korodhay ee gobolkan ku sugan waa maxamed cabdi cumar maxamed oo warka warbaahinta SBC gobolka Gabiley.